بالله تلاهي دمر كقار مركز ركتو اسبتالada tagto ama aad tagto meelaha bulshada isugu timaado ama istiraada bal ordo bal meelaha yara tagto bal cabar meelaha socod markaad istiraada jidka socoto waxaad arkaysaa naag janjeed leh janjeedka waa taqaanaa soo dhalinyarada hadda guursatay badankoodu mas'ale aanay fahansanayn oo qoysaskuna dhibaato ku abaajirta laakiin ninkani wuxuu u haystaa inuu mas'uuliyadiisa tahay gabadha biilkana si kiradana bixi korontadana bixi biyahana shub raashinkana soo qaad ismaba laha islaantan kharash bay u baahantay صابون بيربطها عمرك الله هو ديريو oo ilaahay ha barakeeyo abtigay maxamuud xaliike muxaadarada uu kaga hadlayo arrimaha qoyska ayaa koo jahalaha intay soo qaadeen ba waxay leeyihiin sheekhow shiid baa jira hablaha nagu dirin shiid wax la yiraahdaa ma jiro waxa way dhaqan xumo wax la yiraahdaa idin haysa hadii aadan mariinka sida aad cuntadeeda u bixinayso aadan u bixinayna saabuunteeda iyo waxay u baahan tahay oo hadii ay ku tiraado waxaan dadku leen damba la guuraaye waxaan tabartaada ka baxsanayn oo kale cidina kugu kalifi mayso laakiin inay gabadhu is carfiso oo is qurxiso oo is nadaamiso oo cilaan marsato khasab bay kugu tahay inaad bixiso waa inaad bishii 3 jeer dirac u iibisaa haddaad 3 u iibin jirto inaad 5 jeer u gadaa waa inay waxa weeye markaad adigu 3 joog oo kaba haysato iyadu waa inay 6 joog haysataa waa qasab weeye gabadhaadu markay umusho dabar darro kasta ha ku hayso si kasta dabar darro ha ku hayso gabadhaadu markay umusho waxa jirta waxa la yiraahdaa nafaqeyn umulbax miyay oran jireen qolyaha reeham xamar waa inaad siiso waa inaad lacag dhowr boqol oo dollar aad tiraan abaloorod inta bal ilaahay khayr ku siiyo xaaladda iska tagtageen markay bishii mushaar ku soo dhaco waa inaad siisaa lacag salary waa inaad u qortaa waliba baad ah oo aysan ka baryin bishii hadda 2 jeer lacag siin jirta 3 baa siinaysa waa inay gabadhaadu markay hablaha ku dhex jirto oo ay haweenka ku dhex jirto waa inay ka dhex muuqataa dukaanka haday ku aragto dirac qurux badan ama kab qurux badan ama faraanta qurux badan waa inay haysataa waa inaad u soo gadaa laazim way waajiban calayka adigu arad ku joog fool xumo kaba dacaysa sida hadaa doonto laakiin hooy caruurtaada hooyadoodu waa inay qurux badnaataa stupid baa tahay bullshit baa tahay saqajaara hadii aydan nafaqeyn karaynin oo aydan ma garanaysaa ka taxadari karin oo aydan xanaaneyn karaynin ma guursan kartaan gabdhaha Soomaaliyeed ma guursan kartaan gabadhoodu ilaahu rabbi oo raxmaan oo ma sida doonto abaar u ahaatid you need inaad gabadhaada ka taxadarto waa in aad gabadhaada ka taxadartaa way oo aad sanka uga tolnaataa waxa la loo xirto amiiska saartaa way waaba nafaqadeeda waaba lagu saarayba waaba khasaba maxaa guriga hooyadeeda iyo abeed ugu soo kaxaysanaysa dadan awoodin waxa shiid baa jira maxay tahay aabaa shiidka was shiidka jira muxuu wax shiid la yiraahdaa ma jirta falfal xumo ayna haysa dhaqan xumo far badan baa jirta muddo hadda laga joogo 4 sano miya mise 3 sano ayaa waxa dhacday ninba Mareykanka jira fiiriya daris baanu nahay Mareykanku jira gabadha uu qabo way bariyo tantaa waxay cunto way baridaa baan ku yiri isagoo Mareykanka jira bay gabadhiisu baxdaa oo ay bariyo tantaa oo gaajo awgeed waxa way xaaladdu ku adkaataa asna Mareykan buu jira waxaas ma ninba waa khanis la weey soo marka you guys waa inaad ka taxadartaan oo aad nafaqaysan xaasaska iyo haweenka aad qabtaan maanta arrimaha bulshada isku karbaashana waa xaqiiqo wala ma taabtaan weey gabadhaadu markay umusho lacag baa siinaysaa umusho markay ka soo baxdo lacag baa siinaysaa waxa weeye markay nuujinayso lacag baa siinaysaa hebelo muxuu ahaa iishe barnaamijyo kale leeyihiin adigu lacag baad siinaysaa bishii haddaad hal mar lacag siin jirtay 2 jeer baad ka dhigaysaa waliba waad u badinaysaa waad ugu daraysaa waliba that's it waa waajib ku saaran way waayo ilaahay subhanahu wa ta'ala baa ku dul saaray nafaqadeeda adigu kaba dacsi xiro oo hal joog oo kaba qab laakiin iyadu inay 6 joog kaba haysataa wax kasta u baahato telefoon cusub wax walba she must have wax walba shiid oo ma jirto waayo ilaahay subhanahu wa ta'ala baa kugu naxariisanaya caafimaadka haweenkiina ka taxadara oo gabdhaha aad qabtaan caafimaadkooda ka taxadara islaamo badan waxaad arkaysaa si u garafsan caafimaadka haweenka aad qabtaan ka taxadara oo inay caafimaad qabaan ku dadaala waxay caruurtu la xanuunsanayso hooyadan caafimaad qabin wal calool weyn tahay maqaaxiyaynu fadhiisana shaah baynu ka cabnaa laakiin iyadu shaah ma cabto sharaab baynu cabnaa iyo soodha iyo xogaa khumkhum iyo chips iyo chapati marab baa laga yaqaan halkan xagan qolahayaga isli maqaaxi kasto togaalkaas jidinka wax marinaya gabadhiisina waxa laga yaabaa say wiilkiisa u haysay inuu gobolka ugu dhaco wiil waaguna ugu bariyo
wasakhnimada joojiya dhabcaalnimada u roonaada haweenka dumarka waxa idinku diray waa basaarada ku dilaysaan arrinna waan idin hayaaba hal arrin baan idin sheegaya hadda wallahi been baad moodaysaan dumarka caafimaadkooda waxa ku jirta in lacag la siiyo soo moogid carro fiirso bal adigu waa kaas haddaad saaxiib leedahay adu saaxiib diinteenu ma qabtee ama dhaqanka Soomaaligu saaxiib waxa yiraahdaa ma qabtee bal adigu islaantaada haday kadeed tahay mid musiibo ah haday tahay bal waxaad samaysaa lacag $20 u dhiib $20 intay haysato waa ka mashquulsanta ku dhibi mayso kuba dhibi maysaba adigu lacag ku filan si iska mashquuli lacagta markaad siiso dumarku way caafimaadkooda ku jira hadda wallahi been baad moodaysaa haweenkii carruurta ku hayay ama gabadhii carruurta ku haysay xaaskaagina kuma basii jirtaba wallahi billahi tullahi dumarka qaar markaad aragto aad isbitaalada tagto ama aad tagto meelaha bulshada isugu timaado ama istiraada bal ordo bal meelaha yara tagto bal cabaar meelaha socoso markaad istiraada jidka socoto waxaad arkaysaa naag janjeed leh janjeedka waa taqaanaa Soomaa naag waxaad arkaysaa qalooc leh oo cunug yar dhacadka jiidaysa ninkeedina ka suur buu xiran yahay haweenka nafaqeeya aabiina saladii naboose oo ka xishooda haweenkiina dumarka wax taro nafaqeeya ilaahay baa idin ku naxariisanaya wallahi markaad naagtaada wax say ilaahay soo gelinaya wallahi laakiin dumarkan aad baqtiina sanad gaajada ku dilisaan ka daaya waa sax sheekhu wuxuu idin sheegay ee qaata muuqaalka hal is gaarsiiyo hablo waxa samaysan lacagta idinka marka la idin siiyay idina wax nafla ku qabsada